magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa si habsami leh uga socda ololaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland. xisbiga mucaaridka ah ee UCID oo ay ahayd maalintiisii labaad ee ugu dambeysay kaltanka isu soo baxa taageerayaasha musharaxiinta ka sharaxan xisbigaasi ayaa waxa si habsami leh xuduudiisa taageero ugu soo bandhigay musharaxa doorashada golaha wakiilada gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax boqolaal kamida taageerayaasha musharax Ramaax oo astaantiisa codayntu tahay Shabeel oo saaran gaadiid tiro badan ayaa ku soo wareegay wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Burco iyagoo oo ruuxaya astaamaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID iyo sawirro ay ku xardhan yihiin sawirka musharaxa iyo astaantiisu iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ku muujinayaan taageerada cod ee ay ula diyaarka yihiin musharaxa isagoo musharax Maxamuud Cali Saleebaan uga mahadnaqay dhankiisa taageerada mugga leh ee ay u muujiyeen bulshadiisu aad iyo aad ayay u mahadsantihiin sida hagar la'aanta ay ugu dabaaldegnay maanta gobolka Togdheer waan idin mahadnaqayaa waa mahadsantihiin dhammaan hogaamiyaasha xafiisyada gudiyada taageerayaasha dhammaan waa mahadsantiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudida kaabeynka oo si hagar la'aan hawshooda u gutay gudiyada xaafadaha dhammaantiin waa mahadsantiin ballanteenu waa maalinta 31 May insha Allah gudoomiyaasha kuwa guryaha kuwa taageeray kuwa soo baxay dhammaan way mahadsan yihiin guushu way inoo dhowdahay 4 cashaa inoo haray maalinta wartana waynu gelinaynaa waynu soo saaraynaa waynu dooranaynaa ودلية مروبة دليرو وبلكينو ومالنتا عدبحنتا iyo afarta maalmood ee haray oo aynu shaqada qabanno oo aynu guri walba garaacno waa mahadsantiin waa salaamantiin waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.